xaflad ballaaran oo lagu xusiyay sanad guuradii 16aad ee ka soo wareegtay aasaaska dowlad goboleedka Puntland ayaa waxay ka dhacday Palace Hall ee bartamaha magaalada Khartoum ee dalka Suudaan iyadoo ay soo qaban qaabiyeen xafladaasi ardayda dowlad goboleedka Puntland ee wax ka barata jaamacadaha kala duwan ee dalka Suudaan waxaan ka soo qayb galay qaybaha kala duwan oo ay ka kooban tahay bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Khartoum iyadoo halkaasi uu hadal kooban ka jeediyay قنصلك سفارة الصومالية كل هذا ودن كسودان إبراهيم غوري. sidoo kale waxa iyaguna shucuurtooda cabiray dadkii ka soo qayb galay xuska sanad guuradii 16aad ee ka soo wareegtay aasaaska Puntland maalintii la asaasay dowladda Puntland taasoo ahayd suurtagelisay ummadda Puntland maanta iyagoo ku midaysan hal mowqif leh hal hadaf leh doonaya insha Allah inay gaaraan ugu dambeyn waxaa xafladda soo xiray gudoomiyaha guud ee ardayda reer Puntland ee wax ka barata dalka Suudaan Cabdirasaaq Qaninle isagoona sheegay in farxad weyn ay u tahay dhammaan shacabka Puntland xuska sanad guuradii 16aad ee ka soo wareegtay markii dhidibada loo aasay dowlad goboleedka Puntland aniga ugu horumarinaya konsulka ummadda safaaradda Soomaaliyeed ku xijinaya jaaliyadda ku xijinaya salaadiinta ku xijinaya itixaadka ummadda ardayda Soomaaliyeed ku xijinaya itixaadka ardayda reer Jabuuti ayaan aad u dareemaya iyo waxa kale soo dhaweynaya arimaaway madaxda nagala socota UNDP oo ugu horeeya Ahmed Ciise Cawad iyo xaaskiisa Sahara oo iyadoo ka socota waxa weeye Pakistan aad baan salaamaya salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh ayaa dhammaantiin leeyahay dareenkaygu aad ayuu kacsan yahay taasoo ugu wacan tahay sanad guuradii ama 16 sano jirsigii ay jirsatay dowladda Puntland ee Soomaaliya waxaan ugu hambaleynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed khaasatan reer Puntland dowladoodii oo caawa ah waxa weeye dowlad lagu nastay jawiga ayaa ahaa mid aad u sareeya kuna soo ilaaday farxad iyo reereyn maxamed ciise koona Somali TV Khartoum Suudaan